عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعنب عبد الرزاق علي ولا لذا دمانتين سو دواده انتو كحرين يوتيوب channel كيغا عنب عبد الرزاق علي بإذن الله الكريم وحانا مانت كلا فايديسان دونا عشرين تعناها وكسابسنا مادة علمي بارستا تايتل كعبان كمانتا عربنا ان شاء الله إذن لبداقنا وحاوي قابكا اما بريمري داتا iyo secondary data كليبكانا aad iyo aad ugu faa'iido doontaa labadooda farqiyo u dhaxeeyo iyo sidii ay kala fiican yihiin baa ku ogaan doonaa biidni ilaahi alkariim waxaan rajeynayaa in dhammaantiin idin wada anfici doono soo dhawaada kana bogasho wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin soo dhawaada walaalada biidni ilaahi alkariim waxaan rabaa caawinaan idin la wadaago intaanan galin ka hor chapter 3geena primary data iyo secondary data farqiga u dhaxeeya iyo waxay yihiin chapter 1 iyo 2geena soo dhameynay inta badan primary data secondary data 1 iyo 2 caadi waa normal waayo waxyaabo badan iska leeyihiin laakiin chapter 3ga aad iyo aad u kala duwan yihiin laba waxa la kala raacaa guideline oo aad iyo aad u kala duwan marka insha Allah biidni ilaahi alkariim caawda waxaan rabaa data inaan idin la wadaago primary data secondary data waxay kala yihiin iyo sida ay yihiin iyo example yarna idin soo biidni ilaahi alkariim horta primary data iyo secondary data waa labada nooc oo kala baxaan datada midka koowaad primary data aan ku hormaraya primary data waxa waa xog primary data is the type of the data that's collected by the researchers directly from the main sources in qof maanta macnaha daraasadeen ama cilmi baaris oo sameynayo waaye oo si toos direct asi macnaha sameeyna oo yahay first hand qofka ugu horeeyo waxaan sameynaa ama ay ka soo maaxato inuu sameeyo marka qofkaas wuxuu ku noqonaysaa inuu sameeyo inuu xog soo aruuriyo oo information soo aruuriyo kadib xogta markuu soo aruuriyo inuu taxliiliyo xogta soo aruuriyo markuu taxliiliyo analyze gareeyo interpret gareeyo waxaas markuu sameeyo kadib report gareeyo kadib daraasadeen ka sameeyo ka soo saaro solution am xal horena soo barna daraasadeenta wax loo sameeyo dhanba inay tahay problem jir in la xaliyo marka datadan ama xogtan waxa waa primary data in qofka asaga aankiisa oo macnaha waxaan ay ka soo maaxdaan oo problemkiisa arko qofka ugu horeeyo noqoto waxaan sameeyo waa primary data si directly u sameeyo waa main sourceska waxa dhanna asaal imaanayo tusaale ahaan waxa soo qaadanaynaa waxay sameynayaan survey sameynayaan meesha wax ka sameyn lacag ka soo qadkan bangi ama waxa wax qoraya bangiga taga xogtiisa soo ogaana sample size soo qaadana population oo qaadana kadib questionnaire oo sameeyna wixii questionnaire-kii markuu sameeyo wuxuu ka soo saaraa xogagtii jawaabiyo waxyaabaas dhan marka la isku xiraa qofkan asaaba first hand waxaan dhanba asaa soo saaray asaaro inuu interpret gareeyo oo soo saaro oo problemkan xal u sameeyo sidoo kale secondary data waxa waa the data that's already been collected through primary sources and then made readily available for researchers to use for their own research marka waxa waaye secondary data aad iyo aad u sahlan yahay marka loo fiiriyo primary data secondary data waxa already xog hore wax loogu soo qoray laga soo hadlay waa primary data sida hadda qof soo sameeyay camal wixii dhan oo steebida la soo mari lahaa primary data oo diyaar ah waxyaabo ka dhiman xogag inuu qofkaan macnaha dhameystir camal u haysto oo rabo inuu waxa qofkaas ka dhinac camal oo dhameystiro waxa la dhahaa secondary data waana wax hore loo soo sameeyay ama loo soo qoray waxyaabo kala duwan wax example yara heesana waa kan hadda primary data hadda dib ugu noqonayna waa information in xog la aruuriyo through original or first hand inuu macnaha waxaan original yahay oo qof koowaad daraasadeyntan iyo waxaan sameynayo inuu yahay cilmi baaristan tusaale ahaan waxa soo qaadanay survey focus group discussion on other hand in survey qofkan oo sameeyo discussion badan oo sameeyo waxaas oo wax rabo inuu wax ka soo saaro oo sida waxa dhahay hadaayi wuxuu kan ka duwan yahay primary data secondary data waxa kamid ah in qofkan oo sameeyo questionnaire sidoo kale inuu xog soo aruuriyo xogtii analyze gareeyo interpret gareeyo kadib kii ka soo saaro reportkaas kadib inuu ku dabaqo wixii dhan kadibna solution am xal uu ka soo saaro inta badan markaan anaka ardayda jaamacadda ama academiga xal ma soo saarno laakiin steps waa mareena waxa kale oo jirto secondary data sin hadda waa hore oo soo aragnay already xog hore loo soo isticmaalay ama past someone else qof kale waxa wuxuu soo sameeyay qofkaas wuxuu soo sameeyay waxyaabo ka dhiman camal inaad administrative tusaale ahaan waxa la inaad ka raadsid xogagta internetka oo kale newspaperka articleska tusaale ahaan
secondary data markuu yahay waxaa waaye kaas questionary waxyaabahaas la sameynay like secondary data source ay qaadanaysaa waxaan baastig waxa soo maray camal hadda Soomaaliya camal rabtaa inaad wax ka qortid sida GDP go kale investment foreign direct investmentigiisa waxyaabahaas waxaa laga yaabaa inay ku yihiin tusaale ahaan objectiveska ama waxa rabtid inaad wax ka qortid marka dib u aadaysaa secondary data markuu yahay waxa soo qaadanaysaa period time cayiman adig ku dhawaad 1960kii camal ilaa iyo 2010ka ama 2000 iyo waxa kasoo bilaabay 1990kii oo kale ilaa 2018 ilaa 2020ka ilaa 2020ka ilaa hadda lagu plateau kooda ma dhamaan budgetkiisna ma degsano waxyaabahaas soo qaadanaysaa kadib kuwaas waxa ku dabaqaysaa waxa ku noqonayo answerkaaga wax walba aad ku soo sameynay aad ku soo saaray marka xoogo hore loo diyaari waayo oo qof sameeyay wixii marka maxaa ku ah tusaale ahaan waxyaabahaas waxa ku noqonayo sourceskaaga waa waxa ku dabaqaysid wax walba hadii la cala ay rabtay ama inaad wax ka qortid GDP waa soo sheegnay capital formation ko kale waxyaabo fara badan waxyaabihii hore laga soo qoray oo kale inaad ka soo qaadto waana waxay ku kala duwan yihiin primary data iyo secondary data hadda primary data secondary data si fiican oo kala fahanto waxa ku sahlanaanayo inaad markaa waxa qoraysid primary data secondary data ay ku kalsan ku aad iyo aad ku fudaadaan waxa saan u sameeyaan waxay tahay in markaa gaarno chapter 3 geena aysan nagu adkaanin qofki primary aan si gooni u sharxi doona insha Allah saan ka bilaaba kadib waxaan ku xijin doonaa secondary data waxa soo sameeyaan waxay tahay ardayda inta badan primary ay badan yihiin dad qaar primary waa qaar secondary waa waxa isdii kara inta badan same waaye laakiin badanaa primary data la isticmaalaa marka ani ahaan hadda anag waxa isticmaalaa secondary data insha Allah waan rajeynaa horta primary data ka bilaabaya secondary data aad iyo aad u sahlan yahay ama u fudud yahay marka labadooda loo fiiriyana waxa fudud secondary data insha Allah waxaan sameyn doonaa inta chapter 3 marka bilaabo primary ku bilaabo secondary ku xijina waxa had u hormariyaan waxay tahay si inuu sahlnaato bari marka bilaawno chapterska ama chapter 3 in labadan baa ku sameeyo ardayga primary ka faa'iideysto ardayga secondary uu ka faa'iideysto marka insha Allah waxaan rajeynayaa wax badan cawad aad ka faa'iideen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh